wiil ayaan jeclahay umana sheegan karo. Waa arrin ay in badan isu weydiiyaan dhalinyarada gaar ahaan gabdhaha. Waa midda jirta. Adiga oo keliya ma aha, dad badan ayaa ku dhiban arrinkan. Markaad qof si dhabaad u jeclaato, dareenkaaga wax badan ayaa iska beddelaya. Xitaa haddii aad dadka ka duwan tahay oo horey aad u ahayd qof adag, marka uu dareenkan oo kale ku galo, waxaa isbeddelaya habkaad u dhaqanto, fikir ahaan, xishood ahaan, iyo xitaa waxaad dareemaysaa wadna garaac saa'id ah iyo xishood xad dhaaf ah. Waxyaabahaas dhan waa xaalado dabiici ah. Waxaad ogaataa jacaylka inuusan ahayn wax khaldan. Cidaad calaf isku leedihiin ayaad is heli doontaan. Inkastoo midaan aan dhammaanteen jeclaan lahayn inay noqoto calafkeena ama aynu helno cidda aan jecelnahay, haddana arrinkaas waxaa ka weyn calafka oo meeshuu ku aadiyo ayaad miraha mustaqbalka ka jiran doontaa. Anyway, aan u imaano ciwaankeena. Sidee qofkaas ugu muujin kartaa ama ugu sheegi kartaa jacaylkaad u hayso? Sheegidda meel noo dhig. Muujin aan ka hadalno marka hore. Waxaanu kala qaadi doonaa 2 qaybood oo waaweyn. Qaybta koowaadna waa ficilo, halka qaybta labaadna ay tahay dareen oo keliya. Waa dareen oo keliya. Laakiin waxba ma samayn doontid. Dareen oo keliya ayaad muujin doontaa. Waxaan ogahay inaad rabto inaad qabsato maskaxdooda. Hadba see ku qabsan kartaa? Waa inaad ogaataa xaaladaha uu ku jiro. Ma qof madax bannaan miya? Mise waa qof meel kale ku jiro? Maxaan ula jeedaa? Ma qof xiriir leh ba mise ma laha? Hadduu xiriir leeyahay, kugulama taliyeen inaad sameyso inaad qofkaas noloshiisa caqabad ku noqoto. Waxaan oran lahaa faraha ka qaad. Hadduuse madax bannaan yahay, waad samayn kartaa kuwa kan. Intaynu muuqaalka gudagelin, gareey. Sidoo kale haddii aad nagu cusub tahayna nagu sabiir. Qodobka koowaad ahaana kuwa ficilka. Waqtigan ha muujin jacayl, balse waxaad muujisaa dareen saaxiibtinimo. Waa baaritaanka qofka ma kugu habboon yahay mise waa qof aan habboonayn in lala socdo. Ma madax bannaan yahay mise waa qof meel madaxa kula jiro. Midaan waa lay weydiiyaa, laakiin dhowr sababood ayaan idinku diraa. Ta koowaad, waxaad ogaan kartaa haddii aad saaxiibtaan noloshiisa gudaha. Qof kale miyuu ku xiran yahay? Ma madax bannaan yahay? Sidee waay dhaqankiisa shakhsiyadeed? Waxaa laga yaabaa indhaha inay been kuu sheegaan oo ay ku dhahaan waa qof wanaagsan, laakiin marka gudaha loo dhaadhaco waxaad ogaan kartaa dabeecaddiisa dhabta ah. Sidoo kale waxaad ogaan kartaa markaad la saaxiibto siduu dadka ula dhaqmo, gaar ahaan dumarka kale. Qorshahan waxaan kula talin lahaa inaad sameyso bilooyin ilaa aad ogaato waxa dhabta ee ka dhex guuxaya. Kuuma sheegi doona inta bilood aad sidan sameynayso. Anigu ma ogi qofkaas iyo dabeecaddiisa. Hadduu kula muuqdo midkaad u baahneed, waad qabsan kartaa shaqada kale. Ogowna, wiil oo dhan isku mid maaha. Hadduu noqdo mid aan kuu wanaagsanin, iska daa. Haddii kale, hadhow danba ayaad ka shalaynaysaa. Waxaad samayn doontaa wax kastoo ay ka dhexayso saaxiibada, sida inaad wacdo, waqti kooban aad la sheekaysato. Laakiin su'aal, sidee marka hore ula saaxiibaa? Qodobka labaad, ha ka cabsan ee toos ula kaftan. Marka ay agtaada joogaan ama marka ay kuu dhow yihiin, ilaa aad ka hesho nambaradooda ama ciwaanadooda, ha joojin la kaftankooda. Kaftan iyo sheeko caadi ah kuwad markaad hesho xogtooda. Tusaale, nambarka ayaad heshay maanta. Galabtoo kale waxaad u dirtaa fariimo kaftan oo kale ah. Dulofow, maxaa kuugu dhacay? Markaad nambarkan aragtay, indhaha kala taagtay. Dabcan waa iska kaftan, laakiin waxaan isleeyahay wuu ku yara dhul caddayn karaa. Ma kuu qaadi karo mas'uuliyadda hadalka aad u qortay inuu keeni karo qosol, laakiin waxaan kuu ballan qaadi karaa inuu la yaabi doono dhaqankaaga iyo sida aad tahay iyo sidaad u furfuran tahay. Dumarka qaar waxa aysan raggu u fahmin waa inay u dhaqamaan qaab xirxirnaan ah, adayg. Taasna waa qaabku Ilaahay u abuuray, balse waxaa lagaa baahan yahay mararka qaar inaad isbeddel samayso. Marka dumarow updates ka dhigaa, haddii kale ani xitaa dulufay ayaan ku dhahayaa. Waa kaftan, no more xanaaq guys. Waan iska jeclahay inaan idinla kaftamo. Ku dheeraan mayo qodobkan waayo inta badan waad fahmaysaan. Waanan boobsin doonaa qodobada. Qodobka saddexaad, markaad in badan saaxiib la ahaato misna ay ku qanciyaan, u beddel sharcigii horey. U muuji damqasho. U muuji inaad iyaga ka yara dambeynayso, aad ugu naxayso, aad u muujinayso ixtiraam badan. Dadku ma jecla wax badan in la wanaajiyo. Xaqiiqdu waa midaas. Qofka kumanaan wanaag haddaad u samayso hal mar oo aad khaldantay ay kuu malayn doonaan weligaa inaad sidaa ahayd. Marka ha ka badbadin dhexdhexaad. Markay kuu sheegaan waxyaabo caqabad ku noqday, tus danayn, si fiican u wareyso, dhageyso hadalkooda. Maxaan u leeyahay
qof qalbigiisa kama baxaysid even hadduu kaa taga xitaa. waxaa jirtay sheeko yar aan kasoo xigtay xogtan. gabar ayaa in badan jeclayd wiil, wax walba ayay ku caabin jirtay iyadoona u sheegan jacayl. waxay habeen kasta u ooyi jirtay say u heli lahayd una kasban lahayd. way isku dayday wax badan inay kasbato, laakiin markii dambe ay awooday inay la saaxiibto, laakiin mar walba wuu liidi jiray una muujin jiray xoogaa yasida. habeenkiina way oydaa, maalintiina way faraxdaa oo way la joogtaa. nasiib wanaag, gabadha keliya marka uu dhib arko uu usoo ordo ayay ahayd iyada. markasta oo u yimaado isagoo murugaysan maysan oran jirin hiblaayo u tag ama aday kuu taallaa iyo wax la mid ah. bas keliya marka uu imaado way soo dhaweynaysaa, way dhagaysanaysaa ilaa uu ooyo. laakiin mar walbo ay sidaas samayso, iyagu muslimiin ma ahayn xogtan ciddan kasoo xigtay, laakiin iyagu laabtay isgelinayeen oo wayna isla qaybsanayeen dhibta. dulqaad badanna way muujinaysay. markii dambe wuu ka tegey. muddo marka uu maqnaa ilaa iyo 8 bilaa lagu qiyaasay. habeen iyo maalin wuxuu u baahanayay dareenka ay gabadha u haysay. dumar badan ayuu xiriir la sameeyey, laakiin wuu heli waayey mid la mid ah midkii hore. wuu soo laabtay, iyaduu raadiyey in badan, laakiin wuxuu helay iyadoo istiil joogta meeshuu uga tegay, welibana iyadoo iska dhoola caddaynaysa. anigoo kaa tagay misena waqti badan kaa maqnaa, sidee sidaan ugu dhoola caddaynaysaa? waxay ku jawaabtay, jacaylkan kuu haya ayaa farxadaysiiya aniga. halkaas ayayna ku heshiiyeen, ayayna isku fahmeen. maxaanu soo qaatay, haddii dulqaad la muujiyo qofkana daacad loo noqdo, xaqiiqdii waad helaysaa. xaalad kastuu ku jiro, iyadu way awoodday inay ka tagto oo qof kale ay raadsato, way guursan karta xitaa, laakiin no, isaga un ayay daacad u ahayd. jacaylka daacadda weligii ma guuldaraysto, laakiin waa marka uu qalbiga jiro. waxaan u malaynayaa inay intaas wax badan kaa bedeshay. qodobka 3, xaalad kastoo aad ku aragto dareenkaaga xakamay. sabab qofkan adiga kaama warqabo, jacaylkaagana ma oga, marka waxaa laga yaabaa dad kale inuu u janjeero ama u aado dumar kale. marka adiga maxaa kula gudboon? ma qaylinaysaa? ma calaacalaysaa? ma waxaad odhanaysaa aniga intaan dhan si aan kuu helaan kuu daba socday? cayb caleyg. waad ku fashilmi kartaa qorshaha, laakiin marnaba dareenkaaga yuuna ku qiyaamin. marnaba ha samayn ficilada qaar oo shibka dheh, halkaagana ku sug daacadnimadaada. qodobka 4, ha masirsiin adiga oo ka ilaali ilaa waqti uu isagu kuu soo yaro jilco. markaad dareento inuu yaro jilcay oo dhankaaga aad ka dareento dareen raadis ah, damqashan aad ka hesho isagu inuu kusoo raadinayaan markaad aragto, waxba ha odhanay. mararka qaar waqti kala qaado oo jawiga soo bedelo. internetka oo dhan xitaa ha isticmaalin. mobilka oo meel iska dhig. waxaad yaro dareensiinaysaa muhiimadda aad leedahay adiga qof aad jeceshahay maanta, ama ma qof kale ayaa maalin walba kusoo raadin jiray, balse muddo uu ku gagaabinayay ayaad markaan wacday. waxaad dareentay taleefankooda inuu dansan yahay ama uu qaban waayey. maxaad dareemaysaa? maalintaasoo dhan ayay qalbigaaga kusoo lalaabanayaan, jawigaa kaa xumaanaya. marka qof maalin walba in lala joogo micno ma laha, waayo qofka waa inuu kaa fekeraa. marka ilaa iyo 3 maalin nasiino qaado oo qofkaasi miyuu kusoo raadin doonaa, mise sidaa uga aamusta ayuu ahaan doonaa? ma ku soo wici doonaa, mise shib ayuu dhihi doonaa? ma kaa maarmi doonaa, mise wuu ku welweli doonaa? aniga ahaan waxaan ogahay inuu ku soo wici doono, laakiin waa markaad dooratay qofkii kugu habboonaa adiga, ama ahaa qof wanaagsan oo madaxa bannaana. maalmaha kadib, ama taleefanka internetka shido oo fiiri imise jeer ayay ku soo waceen ama fariimo kuu soo direen. hadday dhacdo inay waxba soo direen ay noqoto, qofkaas weli kuuma diyaarsano. hadduu kusoo raadiyo waa beelo, meesha ka sii wadaysaa. qodobka 5, waqtigan waa muujinta dareenka jacayl. wax badan ayaad soo samaysay, welina isagu kuma oran waan ku jeclahay ama waan kaa helay. adigana sidoo kale, markan waxaa laga yaabaa inaad muujin karto jacaylkaad u qabto adigoo weliba kala hadlaya waxaad dareento. tusaale, dadka way yaqaanaan calaamadaha qofka ku jecel, inta badan way yaqaanaan. adigana waxaad dhahdaa markaad isoo wacayso, wadna garaacaygu wuu kordhaa. tan iyo maalintaas baranay, mar walbo aan ku arko sidaas oo kale ayuu wadnaygu u garaacmaa. ma aqaano maxay kula tahay adiga. dadka qaar doqon ayay iska kaa dhigdhigayaan. arrintaa marka loo sheega way ismoogmoogsiinayeen, laakiin wax walba way ogyihiin.
anyway maalmo kadib haddana waxaad dhahdaa aniga maalmahan oo dhan dareen kale ayaan dareemayaa, waxay ila tahay qof inaan u baahanahay laakiin ma aqaano inuu i fahmi doono, mana aqaano inuu qofka isaguba jecel yahay. Qodobka 6, markaad maalmo sidaan ahaato haddana ka gaabi oo shibka dheh, taleefankana ha ka qaban, fariimahoodana ka aamus si ay u fikiraan qofka kan waxaad horey u dhahday qof ayaan jeclahay. Dabcan ma oga isagu in qofka la sheegayo inuu isagu yahay iyo inuu qof kale yahay, markaana waxaa ku filan fikirka arrintaas ilaa maalmo qiimey siduu kuu soo waco iyo siduu fariimaha kuugu soo diro, like 3 jeer ka badan maalintii, fariimo badan iyo hadalkiisa inuu ku jiro. haye jaceylkaaga aad sheegaysa aad heshay ayaan u malaynayaa. tan 50% waa inay ka mid ahaato hadalkiisa, ama si kale ha u dhaho ama toos ha u dhaho, muhiimadu waa inuu dhaho hadalkan. kadib raadi, waxaadna dhahdaa dabaal ha iska dhigin, anigu qofkaan jeclahay marnaba kama fogaado, laakiin weli waan sugayaa. qodobka 7, markaan inay dhahaan aniga ku jecel ayaa laga rabaa, haddiise aysan dhahayn waa adiga markaaga. waxaa laga yaabaa ficilkan inuu kuga qaato bilo yar ama bilooyin badan, laakiin waxaad oran kartaa waan ku jeclahay, waan isku dayay in badan inaan kaa maarmo, laakiin naftayda waxa ugu badan ay dhahayso waxay tahay farxaddaadii ayaad meel cidla uga tagtay. ma aqaan wax badan oon ku dhaho, laakiin keliya waxaan awoodaa inaan ku dhaho waan ku jeclahay. mar hore ayaan isku dayay inaan qariyo, laakiin farxad la'aan ayaan dareemay. ma aqaano inay maanta ku habboon tahay iyo in kale, mana aqaano inaan ka soo daahay iyo in kale, laakiin dhab ahaan ayaan kuu jeclahay. haddana kuma jeclaan, shalayna kuma jeclaan aniga. wax kastoo aad idhaahdo waan soo dhoweyn doonaa, inkastoo aan aad u rabo inaan ku helo adiga, haddana waan sugi doonaa jawaabteeda. waaw, ereyadaas aniba wax kale iga dhiganbe. ereyadaas waxaad samayn kartaa qofkaas inaad u yeerto weji ka weji, ama taleefan caadiya, xitaa inta wacd waad u aqrin kartaa. ereyadaas waxaad samayn kartaa qofkaas inaad u yeerto weji ka weji, waa haddii aad isku deegaan tihiin. marka ay kuu soo dhowaadaanna adigoo fiirinaya indhahood ayaad oranaysaa waan ogahay inay yara adag tahay, laakiin si kale looma sheegi karo, waayo kalsooni ayaa ku jirto. qofkanna waxaana ogahay inuu soo dhoweyn doono, keliya cabsida iska saar. ma oga inaan sidan kuu sheegay samayn doontid, laakiin waan hubaa inay tahay erayo ku habboon. hadduu tago xitaa ma ilaabi doono. geesinimo iska baar. waan filaa inaad ifahantay. intaasaa ku soo koobay muuqaalka, wuu igu dheeraaday. qayb xiganaan ka sameeya ayaan rajeynaya insha allah. marka xigtaan soo gudbin doonaa. muuqaalkan laagtaada ayuu u baahan yahay, nagu sharaf, sidoo kalena nagu soo biir haddii aad nagu cusub tahay. tilden mac salaama.